aan wax ka ogaano Ectolife ilmagaleenkii macmalka ahaa ee ugu horeeyay adduunka oo gabigiisu ku shaqeynayo tamar cusboonaysiin karo. Nidaamkan waxa uu u sahlayaa lamaanayaasha aan dhalin inay ilmo helaan oo waliba ay noqdaan waalidka runta ee ilmaha. waxay xal u noqon kartaa dumarka laga saaray minkii qaliinka sar ama cilada kala darteed. Ectolife darteed ilmo soo dhacay iyo dhicisba waxay noqon doonaan sheeko hore. Ectolife waxay kaloo xal u noqon kartaa wadamada ka cabanaya dhalinyarada iyo hoos u dhaca taranka bulshada sida Japan, South Korea, Bulgaria iyo kuwo kale badan. agabka halkan yaala waa 75 laab oo aad loo qalabeeyay. laab walbana waxa uu qaadi karaa 400 oo dhalo ama ilmagaleel macmal ah. dhalo walba waxaa loo naqshadeeyay inay lahaato xaaladii ka jiray ilmagaleenka runta ee hooyada. halkii dhisme waxa uu qaadi karaa oo xilhoorin karaa ilaa 30,000 oo ilmood sanadkiiba. Ectolife waxay ku guuleysanaysaa in ilmaha uu ku koro deegaan ka nabad galay infekshanada. dhalooyinku waxay ka samaysan yihiin qalab aan u ogolaanayn in jeermisku ku dhago. dhalo walba waxa ku dhagan sensaro ama dareemayaal lagula soconayo xaalka ilmaha oo ay ka mid tahay garaaca wadnaha, heerkulka, cadaadiska dhiigga, neefta iyo oksijiinka. sidoo kale dareemayaashan waxay la soconayaan xaaladaha jireed ee ilmaha. sidoo kale waxay soo gudbinayaan ciladaha dhaxalsideed. dhaladu waxay soo gudbinaysaa xaaladaha taagan ee ilmaha iyo meesha ay marayso koritaankiisu. xogtan waxaa lagu dirayaa mobilkaaga. sidaa darteed waxaa la soconaysaa xogta ilmahaaga adigoo aysan ka qasnayn. application uu leeyahay nidaamkan waxaa kala soconaysaa video HD ah oo toos aad uga daawanayso ilmahaagii. waxaa waliba jirta qayb gaar ah oo application leeyahay oo aad ka ogaanaysid inta uu jiro ilmahaagu. sidaa darteed waxaa la wadaagi kartaa lamaanahaaga. waxaa intaas sii dheer in ilmahaagu baran karo erayo luqado cusub isagoo waliba ku jira uurka oo aan dhalan. Ectolife waxaa ku dhex jira speakero aad ilmahaaga uga daari kartid codad iyo wixii kale aad rabtid inaad dhageysiisid. application dhexdiisa waxa ilmahaaga u dooraysaa playlist dhan oo isaga kaliya u dhageysto waana uga dhaxaysi kartaa. hadafka nidaamkani waa in uu kugu dhaliyo ilmo caqli leh oo durba la falgeli kara nolosha adduunka markii uu saas u dhashaba. nidaamkan dhibaatooyin uu yeelan karaa waxaase ugu weyn xiriirka ay hooyadu la leedahay ilmaha. marka ay si dabiici ah u dhasho waa uu ka wanaagsan yahay marka mashiin lagu koriyo. waxaa kaloo meeshii ka baxay nuugmadii iyo hormoonadii jacaylka oo ay hooyadu ilmaha u haysay. waxayse hooyadu ka baqsanaysaa dhibaatooyinka uurka sida walaca iyo umusha. hase yeeshee dhib kasta